doorashadan qof iyo cod oo maalmahan aynu iska wacyigelinaynay oo meelo kala duwan aynu ku qabanaynay waa aragti aynu ka dheregsannahay waa go'aan xukuumadeed oo dalkeennu qaatay madaxda ugu sarraysaa qaadatay golayaasha soo madhay golaha xukuumadda golayaasha baarlamaanka labada aqalba soo madhay go'aan aynu qaadanay weeye oo aynu dambidayno cid loogu darnaanaya ma leh cid gooni loogu daweynayana ma jirto waxa weeye mustaqbal mar kasta marna ina ka maqnaa marna aan u soo dhutinaynay weeye haddana aynu go'aansannay inaynu dalkeenna intii laga qaban karo aan ka qabanno qaybana hore looga soo qabtay wixii la rabaa la kala sheegto waxaa la kala sheeganayo dhan been weeye dalkan waa hal dal weeye hal calan buu leeyahay hal madaxweynuu leeyahay hal ujeeddana waa leeyahay marka dalkeennu doorashadaasu aaday kuwii hore soo aragnay waxtarkooda soo aragnay meel bay ilaaxadiina soo gaarsiiyeen laakiin wax lagu kala ciil qabo oo muxuu ahaa dhibahooda leh bay ahaayeen wax lagu kala tirsanaya ay ahaayeen marka mar kastana waxa loo socdaa ama loo socday waa doorasho qof iyo coda Soomaalidu waxay tiraahdaa dibibeyba u dhutiyaa dibigu markuu yar yahay kala kaloo leeyahay laakiin markuu weynaado oo qaangaar noqdo waxa weeye inta qaarka horaabu calaamad ku yeesha marka meesha aynu u soconaa waa meeshaas waana meesha danteenu jidho waana go'aan weeye dad badan baa wax ka sheegaya dawladaha wax ka sheegaya laakiin intaasba uma taalo waxay u taalaa dadka markaa xilka iyo xukunka haya inay dalka gaarsiiyaan ummadda riyadeeda iyo meesha danteedu tahay inay gaarsiiyaan ajnabina taladan qayb kama ahan wixii ay nagu taari karaan oo tari karaan ee awalba waxaan tirtirayeen meelaha qaarkood waa uga baahannahay laakiin ka noqda iyo ma qabsoomayso iyagu ma leh siyaasiyiintana hadda kala aragti waa lagu kala noqon karaa qofka aragti waa si wax way isu tusi karaan ama damac ha noqoto ama aragti ha noqoto laakiin midda dhabtaahi waa midaan weeye siyaasi aan markii uu muxuu ahaa baarlamaanada iyo golayaasha hortaagnaa aan qodobka ku taabayn ama dadka u ballan qaadayna ma jirin markii muxuu ahaa hadda loo weeltumay oo golayaashu isku raaceen oo barnaamijka la qaatayna waa jiraa shakhsi hadlaya laakiin iyagana waxaan rajaynaynaa cidda hadlaysaa inay ka dawoobayso laakiin loomaba muxuu ahaa barnaamijkaana waa soconaya waayo sharciyad baa ka soo baxday meel looga noqdana ma leh shuruuc buu leeyahay haddii ilaahay dhankeeda leeyahay golayaashuu soo marayay waa qaadanay odayaasha waa ku bogaadinaya odayaashu iyagu semberi dadka gooni wax u doona maahan waa dadka maslaxadda dadka intaa ku howlan oo tanna qaybta ka ah oo annagu hadda aan isu badannahay oo inta badan aan wada joogno oo haddeer munaasabado badan aan sidaan isu hor fadhinay waa ku mahadinayaa waxtarkooda kalena waan ogahay oo haddee cid kasta iyagaa uga waxtar badan muxuu ahaa dalka waayo intaa waxay ku jiraan xal bay ku jiraan wax uun bay dhexdhexaadinayaan wax uun nabaday ka shaqaynayaan markii muxuu ahaa wax la qabanayo war odagii meebaa la leeyahay ma nastaanin marka taasna waa idin ognahay waana ku mahadsan tihiin waa abbaar weeye odaygu cimrigiisu waa sii dhowaadaa oo haddee da' buu gaaraa marka intaasoo dhan ajar bay idiin noqonaysaa iyo xasanaad iyo waxaa qabanaysaan oo aad waa cibaadaday qayb ka mid tahay marka waa idinku bogaadinayaa dhallinyaradana hadda mustaqbalkoodii baa u socdaa mustaqbalkoodii meeshuu jiray baa loogu hoggaan qaado marka intii muxuu ahaa maaliyoomay qof aysan ogeyn muxuu ahaa loo soo dooran lahaa inay wax doortaan ama la doorto un weeye waxa ay sugayaan
ama waxa masharaftidoodu tahay marka Soomaalidu waxay tiraahdaa war la qabaa xiisa ma leh doorashadaasna isla qaadanay awaanintu ka soo baxday dadka in la gaarsiiyo weeye hoos loo dadajiyo weeye intii hadda maalmood oo Ramadaantu socotay oo munaasabadaha kala duwan maalinba meel aan ku qabanaynana waxay ahayd shaqo la isfarayay oo markasta ay ahayd in lala dheelmado lagu wacyi gashanaado maalintay joogto muxuu ahaa hawsha la qabto inta ka horeysana dadka lagu wacyigeliyo loo sheego aynu garbaha isqabsanno aynu ka wada shaqayno sharaf bay inoo tahay haddii ilaahay dankeeda leeyahay waxa ugu hooseeyaa waa ugu sahlan waa maayarka degmada weeye markaa soo dooratid oo adigu muxuu ahaa guddoomiyihii soo dooratid dee deegaankii waxa ku leedahay muxuu ahaa ama waa lagu dooranayaa ama adaa soo doortay baawar iyo cod baa ku leedahay aduuna kaa dhex doonaya adiguna codkaaga doonaya hadduu qaatay iskama tegayo weli waa kuu baahan yahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin wacyigelinteenna wejigeedii koowaad waa inoo xirmay wejiyadeedii kaleynu gelaynaa marar badan baan isu imaanaynaa odayaashana kulankooda dee wasaaraddana waa ku kulmaynaayo insha allah diyaar baynu isu nahay waa idiin joogaa inta badan muxuu ahaa markii aan hawl ku jira ma ahane inta kaleba diyaar baan idiin ahay marka khayr baan isu rajaynaynaa afur wanaagsan bishaan ramadaanna ilaahay guul iyo wanaag haynoo ku dhammeeyo cadowga iyo khawaariijta iyo kuwa doolka iyo kan kaloo gacansiiyaha oo ama qarinaya ama tusayo tusiyaha ah iyadana waxa weeye waynu iska qabanaynaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin afur wanaagsan khayr iyo wanaag baan idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh